kubanaan dadweynaha ayaa isugu soo baxay isgoyska tale ee magaalada Muqdisho dadweynahan ayaa waxa soo baxay daaran yahay inay ku dhiirigeliyaan xukuumadda iyo baarlamaanka go'aankii ay ku dhameystireen dastuurkii ku meel gaarka ee Soomaaliya isla markaana qaybad ahay 12 sano ee la soo dhaafay shacabkan ayaa waxay ku dhawaaqayaan eray ay ku taageerayaan xukuumadda iyo baarlamaanka kadib dhameystirkii lagu sameeyay dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliya isla markaana meesha lagu saaray xukunkii ku meel gaarka ah ee Soomaaliya isla markaana markaasi ay shacabku waxay u dabaaldegaan in Soomaaliya maanta ay leedahay dastuur dhameystiran oo markaasi aan doodi ka tagnayn oo baarlamaankii ay baas gareeyeen isla markaana kaliya la sugayo in madaxweynuhu uu saxo taasina ku dhaqan galo shacabkan ayaa waxa halkan kula hadli doona maamulka gobolka Banaadir oo hogaamiyo gudoomiye Mungab waxaana la filayaa in halkan ay ka bilaabato munaasabad rasmi ah oo maamulka gobolka Banaadir uu ku dhiirigelinayo xukuumadda iyo baarlamaanka kadib go'aankii lagu dhameystiray dastuurka Soomaaliya ee ku meel gaarka ah waxaana shacabkan qaarkood nala hadlay ay diidayaan hadallada ka soo yeeray dadka diidan in la dhameystiro dastuurkii Soomaaliya ee mudada qabyada ahaa shacabkan waxay si guud isaga kala yimaadeen degmooyinka iyo xaafadaha ka kooban tahay magaalada Muqdisho iyo dawladkeeda waxayna halkan isugu yimaadeen si ay u muujiyaan shicaarka ku aadan inay ku faraxsan yihiin markaan ay taageersan yihiin in la dhameystiro dastuurkii Soomaaliya oo muddo qabyo ahaa